soomaalidan waa interest waxooda marka caafimaad qabtid oo labada lugood caafimaad qabaan oo waxna kaa maqnayn oo boqolkiiba boqol aad baashaalaysid oo aad shidan tahay qof walbaa ku raba laakiin maalinta kaa jifto cidna kuma rabto nin walba uu ku gambinayaa uu kaa dhacaya dantiisu u eeganayaa marka wixii dhaca way dhiceen qofnana lama eedanayo soomaalina waa la bartay dee mataqaata alcizig dee team malaysia bilaa caleyk marka insha allah walaashay anagaa ku garab istaagsan 700 qof 7,000 qof ku daawanaysa asxaabta live ka daawanaysa waxaan iga rajeen anu teamkayga u sheegareeyay gabadha intay daaqada fuushan tahay 200 oo inaa gaarsiina bilaa caleyk intay daaqada fuushan tahay qof walba wuxuu awoodaa ku dhufto may ana hanta ku ciimadayna insha allah game kalena ku dhishina walaasha ana hanta asxaabta u sheegareeyay Somali gamer ma maqlaysaa ها ما دملا ولاشه دملا Somali gamer ما ولاشه waa مدقة العزك أصحابتي مدقة العزك لو بقول أكون هلا جالس عاو أنت مدقة بالله عليك أصحابتي قالي ما واحد عم وحي مرقا وكل قب سنة ولاشين ما هو سكر عينه ولاشه wax yar inaa cadeeyo ma fahanti ma wacdi sababna ma wacdi uma baahna sidoo muqdasada ma marka intaas oo soo koray meesha walaashay wax walba dhacay anina waa ka xumayd inta ka soo dahay sorry dadka aan garab istaagay baa matqata ka maqlaya wixii mataqaana hiiliho diyaar u ah labada dhinacba wallahi waa maasay Soomaali indhahoodana marxaati u ah kaamirada inay aaminaan way iska daayeen halka waxa ka salaamaya Marish oo gabadha walaashay garab istaag u muujinaysa aad doomaadsan tahay walaashay laal cabdifataax sidoo kale waxa uu ahmaad cilmi cabdifataax Somali gamer ina kismaayo degan wardamaanka nasriin dhamaantiin gabadha walaashina waa gabar u baahan garab istaaga nooc doon ha noqdo maanta oo walaashin waliba iyadoo dhibaato haysatay oo wiil ka saqiiray haddana شايفه لو سيدر يوتيوب كواحد أوران لوجو صديقه لأن الشيء يعني حضلا يسن أوران لسوق جوي لقيت سميسانية مركا المدرية الصومالي وأختين كلي حاد والبوقف والبربو صومرة مركا قف كحاد حن مريا علوس مريا تانك مريا لغنعين أنت كلي هذا الشيء يعني سمسم هذه أنا باي سترونج جيرل باتاي ولقى هو إحنا نقول إحنا دون تعلان دير بشوة تا إنن أو شوابين أف مسوى ذهب بهري صومال ومهما أدبر أفضل والذهب مفانتي أفضل والذهب لكن waxa fiican marka arabtid inaa wax iska tirtid ama wax aad macni iska leexisid inaa wax macni isqabanaya aa keentid ama sheegtid maarish miya saaran maarish soo leeyahay marka waxaan dhihi karnaa dee ama dhihi karno مارش مسافنا باي معانا إنا وكل بلما ربنا أكما يا ها حبيبتي واسكا سيدايا أنا هذا صدح بري مساحانين هردو بإما هيصابة مقارنة هردو ميلي آتي marka bal waa isku dayay ina xoogaa indhaha isku qabto waagin ugu bariyay waana bari insha Allah walaal Yaxya ku salaamay adiga iyo dhamaan inta hoos joogto salaamullaahi iskuna daynaa seexatida hurda askar haysid daa wax cuntayn aad wax cunun inaad wax cun waxaan dhexda xiraadkaysto inaad baan adduunka wax walba ku arkaysaa ma garatay marka alxamdulillah waa marka waan salaamaya dhamaantiin khayr badan aan idin rajeynayaa insha Allah dhamaantiin aad u mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed isoo duceysay garab istaagtay si walba ha noqoto dhamaanta giftiga isoo dirtay oo mahad celinaya ayagana inkastoo aan arkaynin Somali gamer iyo Marisha uga jeeday gabdhaha kale iyo wiilasha kale dhamaantiin aad u mahadsantiin waxaan leeyahay waqtigeeni wacnaada bye إحنا مشينا ما مقلسها
asxaabta dhammaantiin waa mahadsantihiin sida wanaagsan oo garab muuqashada ah aad u muujisaan walaashay macaan haddii aysan maanta awoodin inay youtube kusoo fadhiisato oo maaragtay wax walbay ka cabanayso ama been abuurka socda ay ka hadli weyso ama ay awoodi weyso because tacsida u joogta inaadir macaan anaa halkan fadhiya anaa codkeeda ah soomaalida halkan ku noolna dulmiga joojiyaan dhihi lahaa haddii wax la idinku qabtay oo maaragtay khalad gashaan xitaa waxba ha soo qaadanina fiidiyoyaasheeda waxba ha soo qaadanina sawiradeeda idima baahna shalay garab idinkaga baahnayd maanta idinkagama baahna yuuska badan joojiya asxaabta meesha naga daawanayso sharafta leh waqtigooda noo horeyna aad baan idinkaga mahad celinayaa habeen wanaagsan baa idin dhahaya insha allah